ذي فرض كأوغا فقراء سكذا سيا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورمضان بين كترني وحين قادنيني عشرة كصاب سنة بشن سقفك مسلم كعبادة دي سو قرت علم جادا أيقول له عبادة داسي لنا عقبلك إلهي بأقبلك هي لكن الشرع جوافق ضه درس كنا مع 10 كنا ما أنت وحكوا ساب سيهاي وحيابها بريا صامك وهذا يوم مهم تهين التدوينه وقادان سيبتك ما تلا تدك هذه قوم موديا inay aqoontii leeyihiin sidaada wax badan ba haddana dadku ama iska mashquulsan ama goobaha cilmiga ka fog yihiin nin su'aal soo diro aan eegayo xalayto ismaan lahayn dadku halkaas ay gaarsiisan yihiin xagga aqoon yaraanta wuxuu sheekhow markaan xaaskayga habeenkii u tago ma intoon anigoo jinaabaysan salaada soo tukadaan kadib maydhanaya mise salaada ka horban maydhanaya de jinaabada inuu ka maydhaa waajib taho salaadu had iyo jeer ay aanay ansaxaynin isagoo de qofku jinaabo leeyahay ama masaajidka aanu jinaabo la tegaynin intaa inaynu 10 ka iska wada qaybsanahay baan mooday laakiin dadku halkaasay taagan yihiin hala yaabin marka waxay u baahan tahay in far waaweyn loogu qoro adigu haddaad tahay qof wax garanaya dad halkaa taagan inay jiraan ogow dadka qaarkood baa waxay dhahaan su'aalihii bay kugu su'aalo bilaa macnaa bay sheekh ku weydiinaya oo waqtigii naga qaadeen yaa akhi aday bilaa macna ku tahay dad ay halkan u taagan tahay baa jiro jinaabada salaada ma lala tagaya maraya ama lagu tukanaya marka haddii aad adigu intan garanayso dadka aan garanayn baa muhiim ah in loo sheego cilmigana waxa aad ugu sii baahan qofka jaahilka ah haddaynu ku soo dhawaano waxyaabaha lagama maarmaanka waxa ka mid ah tabiitu niyya min al-layl habeenkii qofku inuu soo niyoodo haddaanu niyoon soomkiisii waxbuu ka noqonayaa xadiid saxiix oo Nasaa'i warinayo nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam man lam yubayyit siyaama min al-layl wala fala siyaama lah qofku haddii aanu habeenkii soo niyoonin soomuma jiro maalintii waa soomka faralka ah gelinka hore la niyoon karaa ka sunnaha ah waxaynu sixi lahayn niyaduna hadallo la yidhaahdo ma aha ee waa qalbiga an-niyatu mahalluha al-qalb oo waa inuu qofkii go'aamiyo una roorta inuu soomi doono markuu cashaynayo suxuuranayo afurayo intaasaa ku filan salaada markaad halkan imikaysa soo taagtay dee laguma soo riixin oo turunturro kumaad imanine qasad baad ku timi iyo inaad salaad tukato niyaduna waaba intaaba marka halkan waxaan xusaynaa daliil ma laha نويت صوم غد عن أداء فرض في لذا دير dad badan ay uba qabaan bahtaan inta oranin inaanu soomkiisi ansaxayn arinta labaad waxa shardiya inuu qofku iska daayo wixii soomka ka jabinayo kuwan soo socda inuu sheegi doonaa laga bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa inta qoraxdu dam oranayso habeenku ilaa uu imanayo arintaasina waa waajib weeye sida aayada aynu marar badan akhriyayna ay sheegayso thumma wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayd al-abyad min al-khayd al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl soomka bilaaba marka waagu dilaaco ilaa gabalku intuu dhacayo soomka wada ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha burinaya waxa ka galmada hadduu qofku xaaskiisa galmo u sameeyo iyada oo ay sooman yihiin labadoodaba uu ka buraya inay soo qalleeyaana waa waajib inay toobad keenaana waa waajib 2 bilood inay soo soomaana waa waajib labadoodaba waa lagu leeyahay sida jumhuurtu qabaan haday labadooduba sooman yihiin waxa xaaraana inuu soomka sii jabiyo si uu galmo u sameeyo ilaahay wuu ku ogyahay oo wuu ku arkaya inna rabbaka labil mirsad ilaahay dhabagal buu kugu jiraa waxaad u jeedo uu ogyahay marka arintaasna waa dambi weyn nabiguna calayhi salaatu wasalaam ninkii uu la hadlayay wuxuu ku yiri qoor xore
haddaad kari weydana 2 bilood oo xidhiidha soon haddaad kari weydana 60 miskiin wax sii marka qoortii imika ma jirta la xoreynayay labada arrimood oo kala weyn waxyaabaha soomka ka jabinaya waxa kamida manidoo qofku iska keeno biyaha taranka oo isagu qasad uu leeyahay iskaga keeno noocay doonaysaba ha ahaato ficil isagu leeyahay dhinacu doonayaba ha kaga soo wareego rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii uu maaragtay taa ka hadlayay waxa uu xusay qofku yatruku dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli xadiidkii bukhaari ee xadiid alqudsiga ahaa waxyaabuu ilaahay qofka ku ammaanay waxa ka mid ah shahwadiisa inuu ilaahay daraadii uga tegayo marka haddaanu ilaahay daraadii uga tegin soomkiisii waa kaasoo uu ka jabay saa daraadeed qofka hadduu xaaskii la ciyaaro isagu markaa sabab uu leeyahay saa ay kaga yimaadaan qallihii baa lagu leeyahay isaga waa maalinkaasoo qallaaya inuu dee toobad keeno haddii qofku uu ishubo waa samayn karaa dhunkasho iyo la dhaqan iyo ciyaar iyo waxa laakiin inta badan man xaama xawla alxima yushiku an yaqaca fiihi qofka seeraha ku warwareegaa khatar wuxuu ugu sugan yahay inuu ku dhaco baasha nafina waa daciifa waxay gaari kartaa meel aanad qabanayn marka albaabku haynoo kala xidhnaado halkaa qolo waliba gaarkeeda u khalaaweynaysa caaisha waxay leedahay kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yuqabilu wahuwa saa'im wayubaashiru wahuwa saa'im walaakinahu kaana amlakukum liirbi bukhaari iyo muslim baa wariyey waxaan taa ku jirin waxaan loo yaqaana ixtilaamka hadduu duhurkii seexdo qofka biyii tarankaa ka yimaadaan soomkiisa waxba ma noqonayo waxa burinayo saddexaad cunista iyo cabitaanka qofku isaga oo u kasaya oo aan macnaha la qasbin oo aan isilowsanayn isagana soomkiisa waa jabaya sidaa ilaahayba aayadda dee cunitaanka joojiya buu waagu markuu bariyo haddii laakiin arrintu ay u dhacday isagoo aan u kasaynin soomkiisa waxba ma noqonayo qofka cuna ee cabba isagoo isilowsan soomkiisa ha dhammaystira buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa raashin iyo sharaab siiyo jaanis buu ka faa'iidaystay lagulama xisaabtamayo qofka wixii aanu awooddiisa ka baxsan waxyaabaha qofka soomka ka jabinaya waxaa ka mid ah haddii uu dee biyi sanka iskaga shubo xadiidkii laqiid waxa uu nebigu ku yihi wabaaliq fi listishaaqi ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane biyaha sanka fiif dheh si aad xaggaa sare usoo maydho markaad weysiisanayso laakiin qofku markuu sooman yahay biyaha fiif odhan maayo intaasoo kunbuu maydhaya markaa wixii la odhan jiray sankoo biyaha lagu shubo iyo afkiioo lagu shubo inay isku mid yihiinba halkaa laga faa'iidaysanaya oo laga qaadanaya culimadu waxay leeyihiin waxaa la mid ah cunitaankan iyo cabitaankan wixii qofka tamar kordhinaya dhiiggii uu isku shubay gluukoostii uu qaatay dawooyinkii faytamiinka ahaa ee qofka xoojinaya tamartiisa cunitaan unbay xisaabsan yihiin culimada qaarkood waxay ka dhigaan waxyaabaha buriya soomka inuu qofkii istoobo iskuma waafaqsana laakiin waa madhabaha qaarkood markaa inaad iska daysaa fiican oo aanaad dhiig iska shubin oo aanaad istoobin khuruujan min alkhilaaf adigoo khilaafka ka baxaya waxa soomkii toddobaadoo jebinaya inuu ka soo baxo ruuxii dumarka ahayd dhiiggii dhalmada ama caadada way umushay hooyadii soomanaydba iyadoo laba kalifinoo heerkaa markay taagan tahay inay iska afurto ay tahay ila hooyo uur lahoo u dhowaato inay dhasho waa la garan karayaa dhibkeedu halkuu gaadhsiisan yahay sharcigu kuma kalifin inay soonto ee waa inay iska cuntay soo qallayso laakiin hadday dhacdaba in dhiiggii dhalmada uu ka soo baxo ama ilmahaba uu kasoo horeynayey soomkeedii wuu jabayaa inay soontaana ma ansaxayo sidoo kale dhiiggii caadaduna waa la mid daqiiqadii maalinka u dambeeyey 5tii mirir ee u dambeeyey maalinkii ay soo soomanayd ayuu dhiiggii caadadu ka yimi qad badala sawmuha soomkeedii waa jabay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka markuu qancinayo wuxuu lahaa alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum xadiidkii saxiixulbukhaari ku sugnaa nuqsaanu diin waxaa ka mid ah dee ninkii isagiiyo soomkii wadunbay gabadhii kolba uu ka jabayaa kolba uu ka jabayaa wakti uu cibaado ku qaadan karaya iyadii ka maqan markaa kolka ay dhiiggaa dhalmadu ka socdo
inaanay dhiiggaa dhalmada iyo kaa caadadu inaanay soomaynin oo aanay salaadana tukanayn buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xaydkiina wuxuu noo la mida nifaaskii macnaha waxaa iyaduna la mid oo sideedaad oo soomkii ka jabinaya qofka inuu go-aansado inuu iska afro niyatulfitr saacaddaa laga bilaabo waabana furay buu dhaanu waa jabinayaaba soomka hala ii soo dhigo qasad uu go-aan buu ku qaatay dee niyadiisii buu joojiyey niyadiisii hore ee soomka u soo socotay wuu buriyey waayo rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaat camalka waxaa lagu tixgeliyaa inamaa sixatu alacmaali manuudatu binniyaat camalku niyad buu ku ansaxaa niya dee niyadiiba waa kansalgareeyey meeshuu ka saaray soomkiisi waa kaga jabaya soomku waxyaabuhu kaga jabaya waxaa ka mid a ilaahay baynu ka magan gallay qofkii inuu gaaloobaba diintuu caayay ilaahay buu caayay rasuulkuu caayay afka intuu kala qaaday buu edab darro weyn oo intaa leeg sameeyey qul abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun qad kafart laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ilaahay wuxuu uhi ma ilaahay iyo aayadihiisiiyo rasuulkiisaa ku dheeldheelaysaa markaasaa leedihiin waanu iska kaftamaynee umaanaan kasaynin waa gaalowdeen buu ilahay waxba ha cudurdaaranina waa qof ku jeesjeesay rasuulka iyo ilaahay iyo aayadihiisa ku afka kala qaado caayina maxaad u malaysa wuu ka sii weyn yahay idan waxa riddada la idhaahdo ama islaamkoo laga noqdo oo laga baxo qowl iyo ficil iyo qalbi mid kastaba ha ahaatee camalka uu qofku ku dhex jiro way kala goysaa ilaahay baa ilaa in ashragta la yaxbatanna camalu haddaad gaalnimo ku dhacdo ciddaa doonaysaba ahawoo camalkaagii soo socday wuu burayaa oo wuu jabayaa waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha mudilaadka loo yaqaano ee soomka jabiya marka qofku waa inuu kala garto wixii soomka jabinaya iyo wixii aan jabinaynin iyo wixii sunno ah iyo wixii falala waxaynu arki doonaa waxyaabo dadka qaarkood ay dareemaan ama ay u maleeyaan inuu soomka ka jabinayo laakiin aanan waxba yeelaynin cashar iyo cadba waa la yaryaraystaa si aan loogu merganine maanta sideeddaa qodob oo cagafta burisa ama cagafta dumisa soomka sideeddaasaad liqaysaa insha allahu tacaala waanaad ka ilaalinaysaa soomka wixii kale aan waxba yeelaynin iyo sunnayaashiisana duruusta dambe aynu ku qaadan doonaa insha allahu wahada maa aquuluhu waastaqfiru llah aynu isuna soo ducayn oo dadka walaalihiina meel walba jooga marka u ducaysaan idinkaa ducaysan qofka walaalkii oo maqan u duceeya buu nebigu yihi ila qofka soomani duca la aqbalaa buu leeyahy markuu soomanya markuu afurayaba malag ba agtaagana wuxuu leeyahay ilaahay ducada ha ka aqbala adiguna intaad walaalkaa ugu ducaysa in la eg baad leedahay marka taasina waa fursad iyo jaanis hadday tahay qoladan iclaamka wax inaga baahinaysa iyo inaga dhammaanteen iyo dadkeenna maqan iyo ummadda islaamka ee dhibku haysta iyo macnaa hankeenu yuu yaraanin keligii haanlaha noqonin adiguna hantaada qura ha ku shubanin ducada dadkoo dhan wada gaadhsiin wax lacagoo kaaga baxaysaa ma jirtee waa erayo kooban oo ikhlaas wato ilaahay aynu la hor fadhiisanno marka aynu isu soo burburna ducada jazaakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان